meesha idiin muuqanayso waa waddada marinka u ah magaalada Beledweyne iyo Ceel Jaalle oo ay dadku ugu badan u qaxeen. halkan waa meesha dadka ugu badan ay ku qaraqmeen ama uu daadku ku qaaday. sida idiin muuqato dad badan ayaa si dirqi ah ama xoog ah ku soo maraya. dadka kaleeto waxa ay taagan yihiin labada dhinac si isugu gudbaan ama isku socod ay u sameeyaan. dadka meelaha dhooban aad ay ugu walwal qabaan inay halkan maraan. dad badan oo gaaraya ilaa 12 qofood ayay saaka halkan qaaday oo dadkii waxay noqdeen kuwa ay qaadeen biyaha webiga Shabeelle oo adiga dadkii markii ay qaadeen biyaha waxa soo badbaadinayay dooman ku jira dhinacan iyo kiliga xaqiisa. laakiin dadku ayaga marka hore waxay sameeyeen isku day ku aadan inay isu socod sameeyaan ama ay tallaabaan oo ay tallaabaan. saas darteed dadka halka hadda idin kaga muuqanaya biyaha soo jiiraya waxay dhaxmarayaan meesha ugu riskiga iyo ugu xooga badan waana meesha dadka ugu badan qaaday. halka ay doonta saaka ku gadoontayna waa dhinacan iyo kiliga biyaha idiin muuqdo. inkastoo ay suurtagal noo ahayn inaan halka tagno laakiin waa un kiligan meesha dadka saaka biyaha ay ku qaadeen. marka laga soo gudbo kiliga halkan dadku ay marayaan waa wadada laamiga ay isku xirtay magaalada Beledweyne iyo Boorta Janta Kundishe. waana laamiga waxa san idiin muuqdo. laamiga ayaa sidan ah marka xaafadihii dadkii deganaan guriyii way qariyeen. tusaale ahaan xaafadahan idiin muuqdo waxa ay biyuhu ugu joogaan meelo sare. wallahi marka wali waa ugu dhex jirnaa biyihii. dadka meelahan waa meelihii laamiga dadkaas socda waxa ay rabaan inay ka tallaabaan wadadan. waxa wadada isku xirta Janta Kundishe iyo Beledweyne. marka qof waliba dadka ehelkiisa waxay u barakaceen meel ka baxsan magaalada. isagina waxa uu ku haray gurigii ama xaafadii uu joogay. marka taas ayaa marka suurtagal u ahayn qofkii inuu joogo. maamulka deegaanka iyo qaybaha kala duwan ee bulshada ilaa saaka waxa ay ku celcelinayeen dadka inay xaafadooda ku ekaadaan oo aysan soo dhaqaaqin isla markaana aysan qatarta u soo bixin. meeshan hadda shalay waxay ahayd meel iska caadi ah oo dadku ay mari karaan. laakiin saaka waxa ay noqotay meel aad u halis badan oo suurtagal ma noqon karto qofkii inuu si sahlan ku maro. dadka halka tuban ee aad u jeedaan waa dad doonaya inay u gudbaan. waa dad raba inay dhinaca u gudbaan Ceel Jaalle. ani hadda waxaan joogaa dhinaca gudaha magaalada. dhinaca waxaan soo jiraa magaalada marinka la isaga gudbaa ayaa aad khatar u ah. marka suurtagal noo noqon mayso annaga iyo qalabkeenna halka ka tallaabno. laakiin waxaan rajaynaynaa inay doon noo imaan doonto. kulay doontis markay noo imaato ayaan rabnaa inaan gudaha u galno oo aan tagno meeshii saaka ay waxyeelada ka dhacday. hadda dad baa ku dhow oo biyaha qaar baa laga cabsi qabaa biyuhu inay qaadaan. waad u jeedaan meesha halista badan. waa u jeedaan dadaa ku qaraqman oo ku jiro. allaha fududeeyo. 4 qofooda ku jirto marka way sii socdaan hadda waa ku sii dhex socdaan. marka allah uu fududeeyo. marxaladda aad iyo aad ay u xun tahay. dadku halkaas ay dhooban yihiin oo qof baa ku dhacay alxamdulillah wuu istaagay waa ka baxay. marka xaaladda aad ay riski u tahay. ilaahay dadka ha samata bixiyo. marka dadku waxay u baahan yihiin gurmad. waxay u baahan yihiin isku socodkaas dadka xitaa ugu yaraan in maamulka deegaanka oo arrintan ka qayb qaata dadka in la joojiyo. sababtoo saacadii la soo dhaafay 12 qofood ayay qaadeen biyahan. alxamdulillah doon ayaa halkan tiilay oo dadka ay ku badbaadayeen oo dadka soo badbaadinaysay. marka dadka waxaan u sheegaynaa in halkan aysan isku soo halayn. wax kasta oo meeshan kaaga jiray biyaha waxay socon doonaan maalmo kooban sida dadka deegaanada Itoobiya jiray ay xaqiijiyeen. marka waxaan ka codsanaynaa dadka inay iska yareeyaan isku socodka. meeshu waa riski qof ayaa loo marayaa. dadka dhinacyahay ka eeganayaan oo waxay fiirinayaan sida ay marxaladda tahay. marka xaaladdu aad bay u liidataa. dadku socodka dadka ayaa ugu daran. khasaaraha ugu badan waxa uu ka dhashaa waxyeelaynta wadada isticmaalka wadadan iyo fuulidda cagafta iyo doonta. dadka xaafadaha ku jiray way bad qabaan. biyuhu way guryahooda iyagoo ku jiray dadku isagala joogaan. kuwa kalena way ka barakaceen oo Ceel Jaalle ayay u qaxeen oo way ku nabad qabaan. halkaas ayaa gurmadyo kala duwan loogu fidinayaa. laakiin dhibaatada ugu badan iyo mashaqada waxay tahay isku socodka ayaa aad halis u ah. isku socodka dadka ayaa u baahnaa in si loo adeegsado awood ah oo lagu celiyo mar haddii qatarta naftooda ay riski gelayso. marka waxaan hadda joognaa annaga meesha ugu riskiga badan magaalada oo ay waxyeeladu ka soo gaarto dadka shacabka ee ku sugan magaalada Beledweyne. marka dadka halkan jooga wali waxay u muuqdaan ma jirto cid maamul ama ciidan ah oo dadkan sortaag ku sameynaysa. laakiin aad ay arrintaas muhiim ugu ahaan lahayd dadkan in halkan laga celiyo si wax looga qabto dhibaatada meeshan ka jirto. haddii sidan ay sii ahaato maanta dadkuna ay maraan qatarta iyo dhimashada waa ay sii badan kartaa. marka laga tagay qatartan iyo dhimashadan kale waxaa jiro iyadana cabsi kaleete oo laga qabo
dadkii la qallimatay doonta oo ilaa iyo dhowr iyo 10 qofood weli la yahay baadi goobkoodana lagu jiro aanan la ogeyn nolol iyo geeri sida ay xaaladoodu tahay marka xaaladdu waa allow sahal waxaan rajaynaynaa ilaahay inuu badbaadiyo dadka halkan ku jira iyo dhammaan dadkaan isleenahay waxay rabaan inay halkan soo aadaan waxaan isna dadka raba halkan inay soo aadaan ee nagala socdo idaacadda iyo muuqaalka facebooka inaysan halkan isku soo haleyn waxaan codsanaynaa in dadka waaweyn ay celiyaan carruurtooda sida idiin muuqata carruur ayaa ka dabaalanayso buundada meesha halista badan carruurtaas waxaa laga yaabaa waalidkii dhalin aysan war u hayn laakiin dadka nagala socdo idaacadda iyo facebook muuqaalkan waxaan u sheegaynaa in carruurtooda ay celiyaan waa arrin khatar ah oo aad u khatar badan doon ayaa hadda imaatay si u kaalmayso dadka halkan doonayo doontaas waxay xaadir ku tahay halkan waxa ay badbaadinaysaa ama ay samata bixinaysaa qofka uu daadku qaado isku day aan samaynayno si aan uga tallaabno marinka halista ayaan isku dayaynaa inaan ka tallaabno allah noo fududeeyo xaaladdu aad ay khatar u tahay ustaad waxaa faahfaahin ka bixisaa meesha aad soo martay xaalad caadi ma aha haye salafku waa iga tegey haye anigana ama dabaal aqaana waxa ku soo gudbisay xaaladdu caadi ahayn haye dhowr mar waxaan dabcan inay israaciyo webiga haye awoodda awgeediyaha ay qabaan haye marka meeshaan qofaan dabaal aqooniniyo isku marin haye ummadda laga badbaadiyo haye ciidamada booliiska iyo maamulku waa ka hawlgalaan meeshaan dadka laga badbaadiyo doon hala keeno dadku halisa ku jiraan ilaa dhowr iyo qof raacatay meeshaan xaaladdu caadi ma aha doonta hadda meesha taagan maxay qabanaysaa doontaan waxay raadiyaysaa dad saakii doon ula gadoontay haye oo meydkoodii la laayahay iyo noloshooda intaba haye marka waxaa la doonayaa inay dadku u gurmadaan dadka meeshaan dadka laga celiyo dadkuna ay ka degaan meeshaan ay ka laabtaan gudaha magaalada roon ay ku laabtaan saasaan u tilmaami lahaa laamaha ammaanka ma joogaan oo weli ma joogaan dadka ma celinayaan laamaha ammaanka way joogaan marka hubkii dadka shacabkaahu dadku kula tashanahayaan ayagoo la tashanay iska galayaan biyaha dad badanaa lagu xarka lagu soo badbaadiyey dad badanaa doon lagu soo badbaadiyey dadka qaarna waa raacdeen ilaa xaafadaha laga soo qabtay adiga intee ka imaatay anigu waxaan ka imaaday waxaan wax ka raadinayay dadka saaki ay dadku la gadootay haye maxaa warbixin naga sii kartaa wax warbixin kuma sii karo webigeena israaciyo oon dabaal xogaa aan aqaanaamaha wala geedka inaan isku daymaagay haye dabcan markaa xaaladdu gudu weyne anigana naftayda aan la fakaro intaas baa awoodis saar qiyaasi dadka doonta saarnaa meeqaa lagu qiyaasi karaa dadka waxaa lagu sheegay 26 ilaa 27 baa lagu sheegay afarta waa la badbaashay saas hadda ku maqla aniga haye laakiin hadda xaqiiqatan kama hayo inta la badbaadiyo duqii magaalada ka waran iyo dadkii la jooga iyaga duqii magaalada iyo gudoomiyihii hore gobolka hiiraan cabdifataax xasan afrax dadka la badbaadiyey inay galeen ayaa la sheegay waa hadda labada qof magaalada dadkii ganacsiga ahayna way maqan yihiin ilaa nolol iyo geeri midna lama hayo marka dadka halkan maraa maxaa dhihi lahayd oo raba inay halkan ka gudbaan halkan maraya waxaan uga digayaa inaan meeshaan naftooda ku halligin ayaa uga digaya maadaama khatarta ay jirto khatartuuda aad u badan tahay aad u umaasan tahay waxaa mid ka mid ah dadkii ka soo gudbay dhinaca ceel jaalle kana qayb qaadanayay badbaadinta dadkii saaka ay qaadeen biyaha oo ama doontu ay la qarraqantay kuwaasoo la doonayay samata bixintooda laakiin waxa uu noo sheegay ilaa hadda inuusan warbixin toos ahayn dad badan ayaa dhinaca kale ka taagan anigana dhinaca kale ayaan taaganahay wiilal dhallinyaro ayaa soo galay si ay u soo tallaabaan waa meesha marinkeedu uu riskig yahay dhinacan waxaa u malaysaa bad oo dhulka waa iska carrada dhan wada biyo waana sababta keenayso inay biyuhu xoogaystaan marka weli waxaan joognaa afaafta meesha ugu riskiga badan oo khatarta ugu badan ay ka imaato dad ayaa derbiyada saaran oo u jeedaan doon ayaa meesha taagan waxa ay gashan yihiin calaamadda bisha cas ama laanqeyrta cas qof baa raacday waa laga daba dabaashay dad baa raacday laakiin waa laga daba dabaalanaya in la soo samata bixiyaan qiyaasta xuseen cabdi jimcaale oo diin ayaa ila jooga uu ka mid ah wariyaasha magaalada beledweyne xuseen soo dhawow waa sidee xaaladdan xuseen intaadan bixin maxaa warbixin oo maqashay oo aad is leedahay waa ka maqashay maadaama saaka ilaa hadda ku dhex jirta biyahan si akhbaar u heshay laga soo saaray
ilaa ay hadda war iyo waxaa aan laga hayn waxaa socota badbaadin gurmada socoto waxaan isku dayaynay inaan doontaas raacno xaaladda ayaa nagu adkaatay waxaan doonaynay inaan tagno halka ay wax ka dhaceen runtii xaaladdu aad u adag iyo badbaadinta la samaynayo howsha la samaynayo oo aad u adag ayay nuu saamixi waysay inaan halkaan aan raacno waxaad dareemi kartaan biyaha ay sida ay tahay xaaladda marka wararku waa kuwa soo daba dhacaya laakiin ilaa iminka tiro rasmi oo geeriyootay magacyada dadka geeriyooday weli lama hayo laakiin xaaladdu waa mid isku soo baxaysa waqti ka dambeeya waxaan rajaynaynaa in ilaahay uu badbaadiyo dadkan waxaana leenahay si wanaagsan ayaad hawsha u wadaan aadaan ula socdaa marka haye walaal waa gudbirtaa malaynaade haye intee dhinaceertaa haye haye لكن الله سبحانه وتعالى يقول ولا يرون أنهم يفتنون في كل عام مرتين صح dadku waxay u maleeyaan sanad walba labadii sanaba in la imtixaamay marka labaad imtixaan inay taa waa inay ogaano hay markaan sida u fahanna ka bacdi waxa noogu xiga waxay tahay maashaan markasta iyo baxo ayaa imaaday ilaaha noo keenay waan ku qanacsanahay aniga kolley waan ku qanacsanahay tan kale gobolkan wuxuu leeyahay siyaasiyiin iyo odayaal gobolka dadka dilay hor dilay hadda dilaa inay nafta ka bixiyaan rabaan laakiin ayagu ay doorasho markasta loogu yimaadiin rabaanoo ayaga war qofka dadku ma dhagalaa mana indhalaa weyna iyo ogyihiin waana dadkii aad ka dhalateen marka waxaad ogaataan qofkii wax qabto haba yaraadaana waa la sheegaa ama taariikh dambaa lagu sheegaa ama intuu nool yahay la sheegaa waxaa noo sheegtaa hadda adiga sidee rabtaa in halkan ku martid oo aa ujeedaa khatarta iyo cabsida laga qabee aniga khatarta aan meesha inaan ku maro aan rabo marka alaabba gadaal iga jirta inaan gadaal u laabtaan raba haye alaabtaas marka aan soo qaata hadduu ilaahay idmo siday dadku u maraana u maraa haye markaas ama waa ku dhimana ama waa ka badbaadaa sababtoo ah haddii aan inta joogo waxaan ka baqaa waadiyaal badan oo hal roob ku daayo oo biyo soo wado way soo badanayaan haye haddii marka igu soo bataan intan aan bacdan ku ahay wax reer una ii joogin reerkayga oo halkan jiro qasab waxaa igu ah ama dhinta ama noolaada ina meesha ka baxo kale ilaahay wuxuu yidhi subxaana watacaala walaa tuhliku anfusakum biyahaas hadda haddaa isku ridana haddana naftiidii waa halaag sax marka halaagana naftiida anoon cadaab u rabin oo qofkii naftiisa gooya cadaab ay ku tahay marka meeshaas waxaan rabaa si caqli ah haddaan doon uga bixi karo inaan uga baxo haddaan uga bixi waayo ilaa ay ka yaraadaan waa sugaya aad iyo aad iyada dhalinyaro kale hadda isku day samaynaayo inkastoo ay khatartani badan tahay u baahnaan lahayd in si dariiqa dadkan lagu celiyo oo ciidamadu halkan ay yimaadaan halkan inay ciidamadu yimaadaan aad bay u wanaagsanaan lahayd oo dadkan laga hortaga sababtoo ah labadan qofood tabardarro badan ay dareemayaan gacanta isku haystaan haddana waxa ay galayaan meel riski ah dhalinyaro kale baa halkaas ku dabaalanayso day waalidiintood waxaa laga yaabaa inaysan war u haynin oo loo baahnaan lahaa waalidkii dhala inay ilmahaas ceshtaan ama ugu yaraan haddii waalidkii dhala xataa ay celi waayeen maamulka deegaanka ayaa la rabaa in tallaabadaas uu qaado laakiin ma u jeedno arrintaasoo dhan waa u jeedaa khatarta labadaa nin ay ku sugan yihiin labadaa nin waa aaday xaaladooda riski u tahay dadka aaday u qaylinayaan warisdee baa lagu hayaa maadaama waxaa laga baqayaa haddii uu qof raacdo qof kalena raacdo aad bay labadu waa arrin riskigeeda leh allah ha badbaadiyo ma jirto wax u gurmanaa dadka halkan taagan laakiin waa ka weriye xuseen cabdi jimcaale ayaa gacan siinayo weriyaha gacan siinayo waa mushkilad laa ilaaha ila allah maxamed rasuulullah waa isaga soo laabteen laba qof oo kale ayaa khatar gashay waxay noqotay annagoo kamarada haynaa dadka caawino laba dhalinyaro baa raacday waa raaceen waa laba dhalinyaro raacday wallaahi war doonta kuwa doonta war markaa raacday subxaan allah war arrinta aaday khatar u tahay wallaahi waa wax laga murugo subxaan allah waxay noqonaysaa intaan ka badan inaanan sii duubi karin mashaqada meeshan ka jirtaay iyo marka loo fiiriyo waxa halkan ka jira aad bay u culus tahay marka dadweynaha iyo daawadayaasha nagu xiran waxaan u sheegaynaa insha allah wixii qeybihi ka dambe inaan soo gudbin doonno waxaan isku dayaynaa inaan tagno dhinaca kaleeta ee buundada isla markaana aan sii tagno meeshii saakii doonta ay ku qarraqantay iyo gudaha xaafadaha si warbixin dhammaystiran aan idinkugu soo tabin haddii ay beeraado aadaa u mahadsantihiin meeshaan riskigeeda dadka qaar ay sii daawadaan waxaa laga yaabaa muuqaalada aan duubayn inaysan sharciyan aysan wanaagsanayn marka riskigan ma samayn karna inaan idin sii tabinno marka aadaad u mahadsantihiin dhibaatada degmadan haysato waxa waa biyobaxadii lixaad oo aan dhex taaganahay nasiibna ilaahay ii siiyey inaana ka tegin kana dhiman ee aan dhex joogo ummadda
biyahan sidoodaba waxa ka faa'iidaysto dad yar oo dan doora leh ayaa ka faa'iidaysta magaaladan waa laga xiri karaa hadda biyahan baxaya haddaan wax idinkaga sheego ummadda soomaaliyeed oo muuqaalkayga iyo magacayga taqaano haddaan wax yar u faahfaahiyo waxa weeye axadda maanta axaddeedii kale ayaa roob u dambaysay biyahan midda labaad dabayl lama socoto oo overwin ma aha biyahan buuraha magaalada dhinacyadeeda bariga jiro ama galbeedkeeda jiro biyo ay soo rogeenna ma aha webiga hadda wuxuu bannaanaay 75 sentimitir ayuu wuxuu lahay jaw cirifyo ah waxaa jira meelo laga xidhay markii ugu horraysay biyobaxadii abriil baxsatay 98 kadib meelo laga xidhay ay magaaladu biyaheeda ka fataahayeen dad dana gaara leh ayaa biyahaas magaalada ku furay ma garanayo danta ay ka leeyihiin afarta xaafadood afar buusishinaa laga xidhay oo low shallow level ahayd waana la gooyey arrintaas markaan u xuuraansadayeen hoos u xuuraansaday waxaa caddaatay niman ganacsato ah oo deeqaha ummaddaas la siiya ka faa'iidaysato inay biyahaas ciyaal u direen masaakiin ah waxaa laga jaray meesha la yidhaahdo buulaxaabley waa laga jaray buulaxaabley maa inay xawataaka waa laga jaray agaraar iyo beerta liyaa bundaweyn waa laga jaray kabxanka abagado waa laga jaray kabxanka abadagaal waa laga jaray magaaladana webiga ayaa ka korreey magaaladaa hoosayso biyahaas aad arkaysaan lama socoto dabayl lamana socdo roob da'ayo waa dad dan gaara leh ee doonaya inay ku dawarsadaan ama wixii masaakiinta ay caalamka ay u keeneen inay ganacsi geliyaan rabo ayaa hadda biyahan magaalada hadda u sababay nasiib darradana haysata marka waxa waaye nasiib darrada gobolkaana haysata waxa waaye dad danta gaar iyo danta guud u fikira ma joogaan dawladda dhexe waxaan u sheegayaa kolley ummaddan way u gurmanaysaa waan maqlaya ra'iisul wasaaraha warkiisa waan maqlay wasiirada uu magacaabayna waan maqlay inaysan la tashan maamul meeshaan joogo oday meeshaan joogo iyo madax hirshabeelle ka timid oo madaxweynaha u weyn yahay inaysan la tashan ee waxay ummaddaa siinayaan buuraha korkooda oo labada dhinac magaalada inay ku siiyaan ma jiro dadka waxaan samaynaa waa dad ganacsi ah oo dana gaarana dalka kale harbi makaraan kulmiy kaleyra meeshaas taageerka ka soo barakacnay waa walaxan qarasho oo ku qaxna weyne wax joodariya oo iyo maaragtay waxaan nafdaaxaa lahayna baabuur soo qaxayda ku soo tuuranay welina hadda qorraxdii waaga meel kuma waaba qorraxdiyaan joognaa 7 qofood annaga ku 7 qofoodaan hayne waxa waa qoryo wax lagu dhisay waxyaabaa duurka loogu maqan yahay annaga geedkan qoraxa iska fadhiyey wax hadda maaragtaahay danaa dadkaan soo raacday lagu kala sikada saas u ah